وزارة حقوقينka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa maanta furay aqoon isweydaarsi ku saabsan qaab dhismeedka siyaasadda lagu horumarinayo maamulka guud ee deegaanka. Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka ayaa munaasabadda furitaanka aqoon isweydaarsiga ka sheegay in muhiimad ay tahay sameynta qaab dhismeedka siyaasadda lagu horumarinayo maamulka guud ee deegaanka maadaama deegaanka iyo bay'aduba ay muhiim u yihiin nolosha bulshada. Deegaanka iyo bay'ada iyo cimiladu waa jiritaanka ummadeed iyo dal maanta adduunka halka ay ka taagan yihiin. Dunidu maanta waxay ka cabanaysaa innaguna haddaynu Soomaaliya nahay dhibaatada ugu weyn inagu haya isbeddelka cimilada adduunka. Waxay nagu haya nabaad guurka, waxay nagu haya xaalufinta dhirta iyo kaymihii oo la xaalufinayo oo dhuxul loo shidayo si tamar ay ugu yaraan ka helaan qoysasku. Ka darana haddana inta la xaalufiyo oo dhirtii bilicda iyo wanaagga keenaysay roobka keenaysay la jaro la dhoofinayo wadamada dibadda loo dhoofinayo. Marka haddii aynaan u soo wada jeedsano gacmaha aynaan isqaban deegaanka iyo bay'ada hagaajintooda dalkan dhibaatooyin waaweyn ayaa soo waajihi doona. Waa ogtihiin Soomaaliya haddaad 30 sanadood ka hor inteedni ku kortay siday ahaan jirtay xilliyada guga xilliyada kale xataa dhirtu ay ahaan jirtay iyo maanta xaalufinta ku socota dabargoynta ku socota duurjoogtiyo haajirtay ama dagaalada riiq dheeraaday sabab ha u noqdaan ama deegaanka isbedelaya dhirtii ay ku gaban lahaayeen oo la jarayo dhuxul loo bedelaya ha u noqdaan. Waxyaabahaas oo dhammi waxa ay dhibaato ku keenayaan deegaankii. Markay dhibaato ku keenaan noloshii reer miyigu deegaanka ku noolaan lahaayeen ama beeraleydu ayay saameyn ku yeelanayaan. Markay taas saameyn ku yeeshaan oo meel ay calaf ka helaan nolol laga helo waayaan magaalooyinkii baa la isugu soo wada shubmaya. Aqoon isweydaarsigan oo soconaya muddo 3 cisho ah ayaa waxaa ka soo qayb galeen wasiirada deegaanka ee dowlad goboleedyada iyo agaasimaha deegaanada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha. Waxaana ka mid ahaa wasiirka wasaaradda deegaanka ee dowlad goboleedka Galmudug isaguna halkaasi khudbad ka jeediyay sheegana muhiimadda ay leedahay aqoon isweydaarsigani. runtii waxaan isleeyahay wax badan baad ka ogtahay arrimaha deegaanka runtii ama heer state ha noqoto ama heer federaal ha noqoto wax badan baana jira oo runtii caqabada ah baahi badanna way jirtaa wax hadda halkan aan kusoo koobi karno runtii ma aha mudane ra'iisul wasaare ku-xigeen waxaan ku faraxsanahay runtii inaan maantay aad halkan noogu timaadidoodna dhegaysatid annagu ka Galmudug ahaan runtii xaalad emergency aan ku jirnaa. Isbuucyadii la soo dhaafay biyo dhaamis baa lagu jiray abaartu si xun bay noo saameysay naga hadda. Horeyna abaartu way noogu dhufatay 2016 iyo 2017 Soomaaliya oo dhan baan la wadaagnay laakiin annaga si gaar ahaaneed bay abaartu noo taabatay runtii. Heer xitaa xoolaheennii iyo dadkii intii awoodi kartay ay hayaameen oo Somaliland iyo Puntland ay u hayaameen baan gaarnay. Wax haba yaraatee response ah ama jawaab ah oo ay heleen haba yaraatee ma jirto oo dhinaca resilience-ga oo adkaysiga aanfooyinka hadday biyo aan lahayd hadday food aan lahayd nooc kastoo resilience ah oo dadka loogu caawin lahaa ma aynan helin. Mushkiladahaasna mushkiladaha hareeyay si guud ahaaneed iyo si gaar ahaaneedba hay-adaha waxaa Soomaaliya ka caawiya runtii cidda access-ka u leh waa dowladda federaalka. Dowladda federaalka iyada mas'uuliyadda ka saaran tahay runtii si gaar ahaaneed inay arrinta isugu xil saarto.